soo qayb galay madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Khaatumo gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Khaatumo waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka Khaatumo Cabdulle Maxamuud Cali Cagalule. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudaymayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaadba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaa munaasabadan ku saabsan tahay sida ku xusan dastuurka maamul goboleedka Khaatumo magacaabista golaha wasiirada ee maamul goboleedka Khaatumo qaybtii ugu horeysay oo aan ku dhawaaqi doono maanta haddii Allah uu dileedmo markaan eegnay qodobka 14aad firqadiisa afraad awoodda madaxweynaha iyo magacaabista golaha wasiirada markaan la tashi la sameynay uqaasha iyo waxgaradka maadaama xukuumadana ay tahay mid wada tashi iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshooyinka reer Khaatumo waxaan go'aansanay inaan u magacaawno wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyada mudane Caynaan Sheekh Cabdiraxmaan Caafi wasiirka arrimaha dibadda iyo jaaliyada wasiirka arrimaha bulshada mudane Saciid Xasan Ismaaciil waraaba dheere isagana waxaan u magacawnay wasiirka arrimaha bulshada wasiirka macdanta iyo biyaha mudane Aadan Maxamed Saalax isaguna waa wasiirka macdanta iyo biyaha wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska marwo Sahra Cali Dheere iyaduna waa wasiirka arrimaha haweenka iyo arrimaha qoyska sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo bacdalintaas maanta waxaan isugu nimid inta madaxweynuhu uu sheegay laakiin anigu hal midhoon baan doonayaa inaan ku daro oo aan u sheego cadawga Khaatumo meel kasta ay joogaanba ama gudaha ahaadeen ama dibadda ahaadeen Khaatumo State of Somalia hore u dhaqaaqday dibna u istaagi mayso wayna jiraysaa wayna joogaysaa xukuumadda Khaatumo State of Somalia iyo state-kayaga iyo maamulkayaga Soomaali weyn baanu ka mid nahay gobolladayada la yiraahdo SSC maanta waxaan doonayaa inaan u sheego dadka waxa u taagan yihiin gobolladayada SSC waxay u taagan yihiin Soomaali weyn sinaan iyo cadaalad marka waxaan leeyahay waa guul hadii madaxweynuhu golaha wasiirada magacaabay marka waxaan codsanaynaa in maamulka la shaqeeyo annagana la shaqeeyo madaxweynaha ku-xigeenka la shaqeeyo golaha wasiirada la magacaabay aad si wacan u soo dhaweysaan bacda salaan annagu waxaan ku hadlayaa afka ururka dhalinyarada ee gobolka waxaan soo dhaweynaynaa wasiiradan la magacaabay iyadoo ahayd hadda ka hor been la magacaabo aan suginay oo magaranaysaa aan u rajooyeen in mar uu la magacaabo wasiiradii dhabta ah ee xaq ahayd ugu dambeyntii ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdifarax Cali Cawil isagoona bogaadiyay wasiiradan cusub ee maanta la magacaabay golaha wasiirada ee maanta la magacaabay waxaan leeyahay hambaliyo aad iyo aad baan haddaad gudaha joogtaan iyo haddaad dibadda joogtaan ba idinku hambaliyeynayaa idinka iyo kuwa dambe ee la magacaabi doonaba ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda xafida inuu ilaahay idinka dhigo Cabdicasiis Aadan Jaamac Telefishinka Caalamiga SBC Buuhoodle